maamulka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta halkan waxa uu gargaar ugu qeybiyay in ka badan 600 oo qoys oo kamid ah dadka abaaraha iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku sugan gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose macaawinadan waxa hore halkan u soo gaarsiiyay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka oo Muqdisho gargaarkan ugu wareejisay gudoomiyaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose dadka gargaarkan loo qeybinaya ayaa iskaga kala yimid xaafadaha degmada Afgooye iyo tuulooyinka u dhow waxaana deeqdan dadka loo qeybiyay iskugu jirta qaybaha kala duwan ee raashinka goobta lagu qeybinayay caawinadan waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose mudane Cabdullaahi Maxamed Cismaan Hiraabe gudoomiye ku xigeenadiisa maaliyadda iyo arrimaha bulshada Maxamed Nuur Gaabo iyo Ismaaciil Aadan Cadaawe taliyaha saldhigga booliiska Afgooye Gaashaanle Cali Roble iyo mas'uuliyiin kale agaasimaha samafalka degmada Afgooye Shariif Xuseen Cali Qalaafe iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada Ismaaciil Aadan Cadaawe ayaa sheegay in gargaarkan ay u qeybiyeen sidii loogu talagalay iyagoo xusay in gargaarkan uusan weli dadka ku filneen maadaama dad badan oo barakac ah degmadaas ay ku sugan yihiin 668 qoys ayaa ka faa'iideystay kulay in ka badanna waan rajaynaynaa inay ka faa'iideysto maadaama degmada Afgooye ay tahay degmada ugu badan ee dadkii gobolka Shabeellaha Hoose ilaa gobolka Baay iyo Bakool dadkii ka soo barakacay oo abaaraha iyo colaadaha jira awgeed uga soo barakacay meesha ay ku nool yihiin ama ay ku soo barakaceen ay tahay degmada Afgooye waxaan rajaynaynaa intaa iyo in ka badan in macnaha hay'adda maareynta masiibooyinka annagu dhihi mayno hay'adaha samafalka iyo waxaasoo dhan dhihi mayno hay'adda dawliga heer qaran ee maareynta masiibooyinka ayaa waxaan oo haddana nala jooga waxaan ka codsanaynaa degmada Afgooye waa degmada ugu badan ee ay ku soo barakaceen dadkii Baay iyo Bakool iyo ilaa Gedo ilaa gobolka Shabeellaha Hoose colaadda iyo abaaraha isbiirsaday dadkii ka soo barakacay meesha ugu badan ay ku soo barakaceen waaye intaana hadda waa loo jeedaa sida ay uga faa'iideysteen alxamdulillah ilaahana ma haddaas iskale dadka ku nool degmada Afgooye waa dadkii ka soo qaxay abaarihii dagaaladii oo ka dhacay degmada Afgooye oo qolada nabaddiidka ahaa iyo lagu qaaday ciidamada dawladda dadkii abaarihii tuulooyinkii abaaraha ku dhufteen dadkii ka soo barakacay degmada Afgooye culays aad iyo aad u baaxad weyn ayaa saaran oo dadka dhibaatadii abaaraha iyo baahida gaarka qabo marka waxaan rajaynayaa insha Allah inta Ilaahay calaf ugu daray 660 qofood waa 66 qofood way gaartay inta kale oo dhiman waxaan rajaynaynaa in sidaan iyo si lamid ah in wax Allah wixii kaalmay oo la soo gaari karo in la soo gaarsiiyo waxaan rajaynayaa insha Allah sidaan si ka wanaagsan inay degmada markastaba dadka masaakiinta dadka barakaca wixii la soo gaarsiiyo inay u sii gaarsiin insha Allah billahi tawfiiq Axmed Maxamed oo kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka gargaarkan goobta lagu qeybinayo goobjoog ka ahaa ayaa sidan sheegay maanta ay taariikhdu tahay 1 December 2022 waxaanu gaarsiinay raashin hay'adda maareynta masiibooyinka ka yimid degmada Afgooye annagoo raacayna amarka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka annagoo aan baqaadayna waxaan gaarsiinay qoysas dhan 668 qoys ayaan gaarsiinay degmada Afgooye waxaan ku wareejinay maamulka degmada iyo maxay ahaatay ilaa heer gobol ah alxamdulillah waa ka mahad celinaa sida sharafta leh oo ay noola shaqeeyeen iyo dadkii loogu talagalay inay gaarsiiyeen waxaan halkaas ku sii darayaa in dad badan oo dhibaataysan ay degmadan ay ku nool yihiin kuwaasoo abaaro iyo dagaallo intaba ay aafeeyeen Yunus Duraan Cali warbaahinta qaranka gudaha degmada Afgooye